halkan waxaan ku qaadanaynaa waxa la yidhaahdo transform property. Transform property wuxuu naga saacidayaa markaas inaan isticmaalno 2D ama 3D transformation in elementiska u isticmaalno. waxa waa macnaha in elementiskiina aan ku sameyn karno rotation oo kalentana aan ku sameyn karno, scale aan ku sameyn karno, skew aan ku sameyn karno, oo waxyaabahan aad sheegayna oo arkeena in action aan ku arkeena. marka waxaan sameynaa marka hore hal sawir ayaa soo gashanaa image src. halka sawir oo meesha inoogu jiro wuxuu ahay sawirkan fadhana. marka dan waxaan sameynaynaa sawirkeena inaan siino size inaan siino width aan siinaynaa oo 400 pixels oo kalento. nice. markaad sawirkeena waa kana ashada wax yar soo yareysanaynaa. okay inta ashada dan marka waxaan sameynaynaa hadda tusaale ahaan oo kalento sawirkan waxaan rabnaa inaan dhexda soo dhignaa rabnaa oo dhexda kor iyo labada dhinac inuu dhexda ka aada rabnaa. marka waxaan sameynaynaa in markaas aan toopka iyo leftiga iyo wixii isticmaalayna. marka intaan banoma shaqeynayna anagoo markaas position siinin. positionka waxaa ka dhigaynaa markaas position absolute ka dhigaynaa. marka absolute ka dhigno marka toopkiisa waxaa ka dhigaynaa marka 50% inuu kor ka soo sakado 50% inuu kor ka soo durgo. sidoo kale intan leftiga inuu ka soo durgo 50%. markaad safe dhaan intaan waxaan arkaynaa in sawirkeeni uu galay qaybta gudaha inuu dhex gala macnaha ama documentigeena inuu gees uga baxay ama meeshaan uu tagay. hadda center ma anaga marka waxaa dhahnay in 50% oo kor ka soo durgo, sidoo kale intan 50% oo dhinaca kale ka soo durgo. haddii aad ku dhaw markaas waa saxan yahay oo sida hadda sheegnay sida saxda ay soo baxaysa waa san. maxaa yeelay elementiga markaas wuxuu fiirsanaya angalkiisa. hadda angalkan centerka u yaala leftigana hadda intaan 50 pixels u jira, sidoo kale intana meesha markii la fiiriyana korna wuxuu u jiraa 50% ayuu kor u jiraa, sidoo kale intan leftigana wuxuu u jiraa 50%. marka waxaan rabnaa si isla eg markaas elementiga centerkiisa inaan ka tirnaa rabnaa oo centerka inuu imaado sawirka in dhexda la keeno 50% labada dhinac. marka waxaa naga saacidayo propertyga hadda aan soo sheegnay ee transform. transformka marka waxaan sameynaynaa transform translate aan leenahay. transform translate functionkan wuxuu qaataa laba value uu qaataa value x iyo value y ama value dhinaca oo verticalka iyo horizontalka ah. marka waxaan sameynaynaa -50% aan leenahay halkan -50%. midkan waa x ka waay, midkan kalena waa yada waay. markaad safe dhahno waxaan arkaynaa in markaas sawirkeena uu si perfect ah u dhexda u yimaaday oo meesha hadda laftigana intaan 50% waay, toopkan wuxuu u jiraa markaas 50%. si markaas nidaamsan ayuu markaas dhexda u keenay. sidoo kale inta waxaa u isticmaali karaynaa waxa la yidhaahdo rotation waxa la yidhaahdo ayaa u isticmaali karana inaan rotate gareyno ama kala wareejino elementskeena. markaas waxaan leenahay marka transform rotate oo kalento rotate. marka hadda rotate dhaan waxaa dhaynaa 45 degree oo kalento safe dhaanay 45 degree. meeshaan qaladnay oo waxaa laga rabaa rotate markaa dhaano waxaa leenahay 45 degree. markaad safe dhaano waxaa arkaynaa markaad sawirka in uu kala wareegsamay. markaad sawirka qaabka u arki karayno waxaa arkaynaa marka in sawirkeena uu noqdo mid gees. marka waxaa sameynaynaa intaan sawirka sidekiisa waxay inaan yareyno waa ka dhigno 300 oo kalento. markaa safe dhaano sidoo kale intaan iska tiri karnaa marka hadda transformkan iyo waxyaabahan si sawirka caadi ugu aragno. marka waxaan arkaynaa sawirka inuu caadi u kala wareegsaday oo noqday mid gees. sidoo kale waxaan ka dhigi karnaa 90 degree inuu sawirka wareegsamo oo sawirka dhanba wuxuu noqday mid noocan. sidoo kale 80% aan dhaynaa sawirka wuxuu ku sameynayaa rotation markaas inuu kala wareejiyo markaas ayuu ku sameynayaa. sidoo kale waxaan sameyn karnaa intaas ka tirno safe dhahno waxaan sameyn karnaa in aan dhahno skew waxa la yidhaahdo. skew waxa la transform aan leenahay skew waxaan leenahay oo kalento 45 degree. safe markaa dhahno waxaan arkaynaa in sawirkan uu noqday mid markaas la kala jiido kalento, mid markaas sawirka la jiido kalento ayuu noqday. sidoo kalento waxaan isticmaali karnaa waxa la yidhaahdo scaling. transform scale waxa la yidhaahdo u isticmaali karnaa. scale-ka hadda markuu 1 yahay element kasta marka scale-kiisa 1 ayuu ka bilaabanaya. hadda haddii aan dhahno 1.5 oo kalento haddii hadda dhahno waxaan arkaynaa sawirka inuu soo weynaaday. haddii hadda 2 ka dhigno waxaan arkaynaa sawirka inuu haddana soo weynaaday. 3 haddaan ka dhigno sawirka inuu zoom soo galaya macnaha
one by default waa sawir kasta element kasta scalekiisa one waa sidoo kale sawirka waxaa sameyn karnaa in aan sii yarayna markaas anagoo dhigi karno 1.5 oo kaleento 0.5 oo kaleento markaas step dan waxaa arkaynaa sawirka inuu soo yaraado taagan hadda property transform kaliya micnaheeda maahan in sawir kaliya loo isticmaali karo element kasta loo isticmaali karaa paragraph ha ahaado div ha ahaado h1 ha ahaado wax kastaba waa loo isticmaali karaa transformka oo inta hadda sawirkan ku sameynay waa ku wada sameyn karana marka cashirkeena intaan ku egyahay waa inuu kan xiga